waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagi baryaba awbax laga waraabsho waagi baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو نقد وناكسن أرتين وحسدني اللباد 10 كيني وحي الله دقاتك وحي نقول شوكتي قويجي اسئل كامبي وين دول مرني وحي نقبل أول نمركب بالشر حيسي قويجا iyo رياديسي iyo macnihiisii iyo ujeedadii iyo dulucda gabayga ku dhex jirta iyo waxa gabayaagu inaga waaninayo iyo sida uu inoola hadlayo inaynu isku dul taagno xubin isku dul taagno ereyada had iyo jeer halka dambe aynu ku qaadan doonaa oo ay idin raacsan tahay laakiin waxaan idinku sameeyay midab gaar ah tudco kasta erey wixii cusub ee ku jira ama u baahan in la macneeyo huruud baan idinku sameeyay wuxuu yidhi haddaba gabaygu wuxuu u qaybsan yahay meerisiyo wuxuu leeyahay tadciyo dhextaal ah meeris kasta marka la soo dhameeyo laba tadciyo oo dhextaal ah waad arkaysaa labada tadciyo halkaa ka muuqda kuwa ayuu ku soo gabagabayn doonaa marka inuu loo wada socotaaba waxay ka hadlaysaa ujeedo iyo duluc gaar ah ayay xambaarsantahay ka hadlaysaa intan ugu horeysa gabayaagu wuxuu ku tilmaamayaa isagoon cimri da-aba gaadhin inuu u egaaday sidii nin gaboobay oo kale waxaad ka garanaysaa inuu inoo sheegayo inuu qaadku cimri dadejiyey waxaynu ka faa'iidaysanaa markaa balwadani xataa dhibaatooyinka qofka ku keentay inay ka mid tahay inuu cimri degdegaba oo qofkiiyo muuqaalkiisii isagoo da-diisii yar tahay muuqaalkiisii u egaado qof weyn markaa wuxuu ku bilaabayaa cimri degdegaa qaadku ku riday waxa kaluu inoo sheegayaa qaadkoo keliyihiiba inaanu ahayn balwadihiisu iyo balwadaha halista ahi ay ku jirto balwadaha xunxun sigaarka ay ku jirto laakiin se qaadku dabada ku wato cabista sigaarka wuxuu yidhi alyaaliya ma jirin maalintii caado laysaray alyaale iyo caado waa laba meelood oo qadiim iyo magacdood oo muddo hore oo lagu sheegay gumaysto xilligii dalka yimid la degi jiray oo caanku ahaa markaa ninkan wuxuu leeyahay labadan meelood ee alyaale iyo caado waktigii la degi jiray anigu maan jirin buu leeyahay oo nin xilligaa noolaa ma ihi da-dii caana weynoo kalaad camal imoodaa haddana anigoon ilaa xilligaa jirin baad waxaad haddana imoodaysaa da-dii caana weynena waa gus soomaalida soo marayoo oo barwaaqo ahaa ayaa loogu magac daray caana weyne gugaasoo markaa wakti hore ahaayo dee dadkiisa aan waxba ka noolayn wuxuu ku leeyahay anigoon xilligaa jirin baad haddana waxaad imoodaa da-dii gugaa dhalatay ama caana weyne xilligaasi noolayd oo kalaabad imoodaa oon u egaaday wuxuu inoo sheegaya markaa inuu muuqaalkiisii gaboobay wuxuu yidhi intii aan cabbaayeen sigaar cayn walba u jiiday waa taa gafuurkii cad yaheen caws matalaya yaa salaam intaan sigaar nooc walba jiidayeen cabbi jiray een balwadaa sigaarka ku ba'naa een si walba sigaaryaca buu ahaa waxaan ka dhaxlay buu leeyahay inuu gafuurkaygi iyo garhkii iyo shaarubihii iyo dhinacyadiiba inaan ka ciraystay oo sidii cawskoo kale ayaabaan wada ciroobay buu leeyahay on caddaaday anigoon hadda da-daana jirin oon xilligaa noolayn yaan haddana sidii oday raabuqay oo guxushaaya yaan dhinac walba ka ciroobay buuli jidhkaygii camooraha noqdiyo camalkan doorsoomay jidhkaygii camooraha noqday camooraha waxaa la yidhahdaa haragga
soo markuu ka soo ururay muddo meel ku raagay loo hawlgeli waayo la nidaamin waayo uu ururaa uu qaboobayo markaas aan la kala fujin karin jirkaygan ururay ee gaboobay ee camooraha noqday iyo camalkan doorsoomay muuqaalkaygan bedelmay camalkaa ijiitiyo ilkahan wada ciyaaraya camalkaa ijiita ninku markuu gowso beelo waxaa lagu gartaa labada daanbee quruxda badan leh markan uu qofku yar yahay soo taagan yaa isku dhacaa dabadeedna wuxuu yihi camalkaa ijiitay isku dhacay iyo ilkahan wada ciyaaraya ligliganaya macnaha carabkayga iyo foolashaan kala cileeya qofku markuu ilka beelo waxaa kusoo hadhay 2 fool iyo 2 xagga hoose iyo dhowr midh dabadeedna qaniyadaa ku badata ninkani wuxuu leeyahay carabkayga iyo foolashaa yaray igu soo hadhay baan kala ilaaliyaa oo kala weeciya kala cileeyaa wuxuu ujeedaa kala ilaaliyaa oo kala dhowraa si aanay oo isku qaniinin hal waxaasuu baday buu leeyahay qaadku inuu jirkayga ururo inay camalkii jiitaan inay ilkii wada ligligtaan oo qaarna daataan inaan carabkayga iyo foolasha kala ilaaliyo oon kala cileeyo dadkana wixii caruur iyo yiqiin way cajabayaan buuri dadka wixii yaraan igu yiqiinay yaraantaydii ogaa ee dee dhalashadaydiiba garanayay ee iga waaweynaa mar alla markay arkaan way yaabayaan buuri maxay la yaabayaan talow dee muuqaalkiisan isbedelay ee gawshaaga noqday ee qaadku sababta ahaa ayuu kula yaabayaan wuxuu yidhi haddaba 4 isciilkaambi iyo cabasho waayeel dhabuuri intaan idin soo sheegay jabkaayo leeleelkaa uu qaadku i mariyey wuxuunba iga tahay buu yidhi isciilkaambi alolyow inaan ka warwarsan oo ka warbahaarsanahay wixii qaadku i baday iyo cabasho nin weyn oo dee ka cabanayo balaayaso ku dhacday iga dheh buu yidhi 4 waxaa kaloo uga gol leeyahay buu yidhi kuwa haatan caashiqay war ay ku cibro qaataan cibro qaadashada waxaa dhaha waana qaadasho waxaa kaloo uga jeedaa kuwan imikuun caashiqay waa dhalinyarta hadduu bilaabaysa arrin ay ku cibro qaataan ay ku taamilo qaataan ay kaga waantoobaan iga dheh buu yidhi warkaan idin sheeg marka labadaas waa dhextaal way nagu soo noqon doonaan waxaana xambaarsan yihiin waa ujeedada ugu weyn ee gabayga uu tirinayo isagaa ku calacalaya kow waana ku cabanayaa dadka hadiye imika qaadka ku hawlaneed imika cunistiisa bilaabayana wuu ugu digaya oo ka wacyigelinaya waa intaa ujeedada gabay aynu kusii soconay wuxuu yidhi meeriskan labaad wuxuu kusoo qaadanayaa raggii qaadku googooyey ee qaadku waxyeeleeyey isagoo keliya maaha qaar ka mid ah oo macal isaguba ku jiro 7 nin iyo isagoo 8 ku ah ayuu ku magacaabaya uu leeyahay hebelba waa kuu sidaa u galay hebelba markuu sidaa noqday waa kii iska daayay hebelba waa kii ilkaha ka qubay hebel kale waa kii siduu u galay ciil kugu dilayo bal anigii hebel day indhahan una tiray qaadku hataa wuxuu halka dib ku sheegay inuu isaga laftiisa indhihii iyo gabaabsi ka yahay oo qaadkaasi dilay wuxuu yidhi caydiidba waa wuxuu ku nacay caatadu baday caydiid waa ragga qaadku waxyeeleeyay uu garanayo usoo taagnaa caydiidba waa wuxuu iskaga daayay oo qaadka ku nacay caatada uu badayo welidda uu ka dhigay siduu u bahdilay qaadku waa waxa uu ku nacay buu yidhi ragguu caarayuubaha la dhacay carashba waa kow carashkaasina waa nin kale magaciyey caarayuubuhu waa waran ragguu qaadku dilay buu leeyahay markaa ee uu waxyeeleeyey carash baaba ka kowga buu yidhi carash kow kaga sii cismaan haami ciisow gamaax culimaduu laayay ninkaa la odhan jiray cismaan haami iyo ciise gamaax waa ragga uu qaadku laayay bay ka mid ahaayeene iyo culimadii kale uu laayay Omar baan siduu ugu cartamay cidina moogay ninkaa Omar la odhan jiray ayaa siduu bahalku ugu tacadiyay ugu taagsaday cid kastaaba ogtahay oo qarsoonay bal hadda aydiid bahalka markuu caatiyey buu iska nacay buudhi ragguu caarayuubaha la dhacay uu laayay ninkaa carash baa ka kow waa 2 cismaan haame iyo ciisow gabaha culimada ka mid ahaa iyo raggii la midka ahaa ee culimada ahaa kow kaga siiyey waa 4 Omar ayaan siduu bahalku ugu taagsaday cid walba ogtahay buudhi cid moogani aanay jirin waa 5 oo ninkaa Omar siduu u galay erid baa uga hadhay gawsihii ciidanka ahaa ilkuhu buu ka daadiyey ninka waxa la wixii ilaahay ilka siiyey dhowr iyo 30 kii gawsihii ilka bis ku jiray foolaba ayuu ka qubay wuxuu yidhi erid baa uga hadhay gawsihii ciidanka ahaa
dee ninkay gawsihii iyo wixii wax ku cuni lahaayee uu ku ciidamin lahaaba qaadku ka daadiye maxuu kaga tegi siduu ina ciyaallo u galaa ciilku dilaya ninka kale uu bahalku baabacsaday ee uu qeyrkii ka reebay ee marka la arko la ciilkaabiyo la ciishoonayo ina ciyaallaa ka mid a markaasuu yidhi siduu ina ciyaallo u galay ayaa ciilku dilaya ood la yaabaysa wuxuu kusoo gebagabeeyey car erdaya aniyo suur indhahan caadkana la moodo aniga iyo suur waa isaga iyo ninkaa suur la yidhaahdo indhahaanu beellay ee caadkuna fuulay aanu hadamsanayno bal haddaad u fiirsada buuli waa imise qof markaa caydiidka iyo carash cismaan iyo ciise oomaar ina ciyaale suur iyo isaga laftiisa 8 qof ee uu gabyaagu ku jiro ayuu leeyahay qaadku midba weelu ka weerarayba waxba nagagama tegin buu yidhi ee afartaana isciilkaambi iyo cabasho waayeel iga dheh kuwa haatan caashaqay war ay ku cibro qaataan dhabuuli arrintaan idin soo sheegay wax kalayga ma ahee waa isciilkaambi iyo cabasho waayeel iyo weliba kuwa nimanka caashaqee qaadka cunaya war ay kaga waantoobaan ayuunbay iga tahay buuli wuu sii wadayoo meeriskan dambe cajabta badan le wuxuu ku sheegay dadka siduu u waxyeeleeyey qaarkood buu xaasaskii iyo awlaaddii dhaafiyey u seejiyey qaarkood baa horumar intay gaadheen oy haddaa u baxeen ayuu bahalkaasi dhulka la soo galay oo uu qayrkood ka reebay qaarkood intay hanti adduun ilaahay siiyey uu bahalkaasi ka baabiiyey ayay dibna usoo kaban waayeen qaarkood imikuun afka ciidda daray oo qaadkii waxyeeladiisii ayaa iyaguna la hoganaysaa ciiddaa ka badan buuli wuxuu inoo tilmaamayaa dadka geesiyaasha uu laayay qaadku inaanay mid iyo laba ahayne ay ciiddaa ka badan yihiin buu inoo sheegaya wuxuu yidhi imisuu cadrada seejiyey oo curadadii waayey cadraddu waa haweenaydii gabadhii bilisti imisuu xaaskii seejiyey oo curadadii uu dhalay amase loo dhali lahaa sidaa ku waayey oo qaadkaasi ka furay xaasaskiisii amase qaad dartiiba ka guursan waayey waa labadaba way noqonaysaa imisuu nin caadaa u baxay horumar gaadhay hoos u soo celiyey nin horumar gaadhay imisuu dhulka la soo galay hadeeg imisuu nin caanaha ka qubay cuudna dhaqan waaya caanaha imika waa hantidii imisuu nin hantiila ah hantidii ka baabiyey dabadeedna dibay dabadeed dunyo u yeelan waaye miyaanan jirin rag dukaamo iyo bakhaare iyo hanti lahaa oo markuu hantidii meel fiican u marayso un qaad iyo balwad bartay dabadeedna waxa la wixii oo dhan hanti cunay macal dhulkiisii iibiyey way jiraan markaa tiro male buu leeyay imisuu nin caanaha ka qubay oo cuudna dhaqan waaye alqaskaa intuu ugu riday ee ciid la hoganaysa intuu afka ciidda u daray alqaska waxaa la yidhahdaa bulad intuu ciidda afka u geliyey ee ciid la hagooganee la hogane la foorarta ayaa ciiddaa ka badan buuli anuunbaa iscanaantaye haddaan caalamkaba eego anuunbaa iscanaananaya oo dee qoomamoonaye haddaan dunidaba u fiirsado inta haatan ciiraysa baan idina koobay inta maantuun la il daran ee qaadka dartii la hawlaysan ee dhibaatada qaadku hayso ayaan tiro lagu soo koobin oo cid alla cid tirin kartaa aanay jirin camuuddaa ka badan geesiguu dilay careefo nin magaciioo saaxiibkii uu kusoo halqabsaday wuxuu leeyahay intuu geesi qaadku laayay ayaa camuuddaa ka badan buuli afartaana isciilkaambi iyo cabasho waayeel dheh kuwa haatan caashaqay war ay ku cibro qaataan dheh wuxuu inoo sheegayaa halkan haddaynu dib isku yar xasuusino wuxuu tilmaamayaa dhibaatadii qoyska imisuu cadrada seejiyo curadadii waaye dhibaatada horumarka inuu horumar la-aanta imisaa nin caadaa u baxay hoos soo celiyey dhibaatooyinka dhaqaalaha imisaa nin caanaha ka qubay cudna dhaqan waaye dhibaatooyinka nololeed calqaskaa intuu ugu riday ciid la hoganaysa anuunba iscanaantay haddaan caalamkaba eego inta haatan ciiraysa baan cidina koobin bal siduu qofka noloshiisa u baabiinaya waxa kaluu sheegayaa intuu qayrkood ka reebay inaanay tiriyo cadad lahayn oo camuuddaa ka badiyin buu tilmaamo sii soco wuxuu yidhi waa cadowga diinta iyo sharciga caynaduu yahay bismi illaahi araxmaani iraxiim wuxuuna leeyahay qaadku waa cadowga diinta iyo sharciga islaamka siduu yahay ugu egyahay qaadku oo siduu cadow diinta ugu yahay
halkaa haddaynu yar isdul taagno qaadka dadka had iyo jeer ku baahan ee aadka u cunaa xagga diinta iyo gudashada waajibaadka diinta kuma wanaagsana, waa gaabis, salaadoodu joogta ma aha, hadday tukadaanna wax salaad lagu sheego oo khuduucdeedi iyo khushuucdeedii lama tukadaan, haddii kalena waabu ka kala ridaayo dadka qaadka cunaa qaarkoodba hadday erigaaba saaraan aan salaad u kicin. waa waajibaad diineed, waa rukni dhan oo diinta islaamka ka mida oo uu baabiiyey. waxaa kaloo diinteena islaamka ka mid a riximka iyo xidhiidhinta iyo qaraabada in la xidhiidhiyo. qaadku waa waxa keliya ee sababa in qaraabo goyska ah dadku hadday qaadkaa uu ku baahan yahay ninku qaraabo iyo ehel iyo toltoona ma xidhiidhiyo, waa rugni labaad. waxaa kaloo qaadka sadaqada in la bixiyo waxbixinta waa rugni diineed oo kale. ninka qaadka cunaa wax alla wuxuu bixiyaa ma jiro, isagii baaba baahan. waxa kaloo arkaysaa had iyo jeer qofku inaanu daahir baahayn, kaadida inaanu iska hagaajin. qaadka marka uu cuno dadka qaar baa waxba kasoo raacda manida oo 24 saacadood baa nijaas ku noqda. waxa mar walba wuxuu had iyo jeer fadhiyaa meel aan daahir ahayn. adigu isku soo wada duubo sharciyada diinta iyo islaamka ayuu baabiiyaa. xanta ugu badan iyo diin ayga ugu badan iyo waxyaabaha xaaraan cunka ugu badanna isagaaba sababa. markaasuu ninkani ku tilmaamay yiri waa cadowga diinta iyo sharciga ayna duuyahay. uu sii wada wuxuu yiri waa cudur la soo iibsaday caafimaad leeyahay. inaga hore soo sheegnay qaadku inuu yahay caafimaadka u daran yahay. ninka gabyagina waxa uu ku sheegay waa cudur la soo iibsaday. qaadkii wuxuu ku sheegay inuu yahay cudur la soo iibsaday, oo ninka qaad iibsanaya inuu la mid yahay nin cudur soo iibsanaya oo dukaan intuu farmasi galay ka soo iibsanaya kaliya xanuun dhiikar. ma suurtagal ma tahay haddii imka la furo meel lagu iibiyo xanuunada cudurrada kaliya xanuunka iyo feer xanuunka iyo qaaxa xanuunka iyo samboorka iyo dhiikarka iyo macaanka iyo AIDS-ka lagu iibiyo, meelada cid tagayso oo odhanaysa iibi in yaro kaliya xanuuna ma dhacayso. haddana qaadku maadaama wadnihii wax u dhimayo, keliyii wax u dhimayo, afkii wax u dhimayo, ilkii wax u dhimayo, dee ninka qaad soo iibsanaya waa nin ilka xanuun soo iibsaday, waa nin macaan soo iibsaday, waa nin keliya xanuun soo iibsaday, waa nin hurdo la-aan iyo qabsil iyo calool istaag soo iibsaday. markaasuu yidhi waa cudur la soo iibsaday caafimaadii. uruuqaha jirhkaagoo dhan buu caajis geliyaa. uruuqaha waxaa la idhaha xubnaha qaadka ninka cunaa ma firfircoona. si walba hadduu fariidu ahaan jiray mar alla markuu bahalkaa cunu isbedelaa. hadduu hore u kici jiray ma kaco, hadduu hore u seexan jiray hore uma seexdo, hadduu firfircoonaan jiru shaqadiisa wadan jiray ma wato. marka uruuqaha jirhkana caajis buu bahalku ku abuura. wuxuu kaa cileeyaa halkii aad ku cigan layd, wuxuu kaa kharibaa. cilayntu waa kharibaade. halkii aad ku cigan layd waa maskaxdu jeeda. caqligii qofka bini aadamkii wax ku kasban lahaa, uu bulshada dhexdeeda wax ka kasban lahaa, oo aqoon ku baran lahaa, dadka kula macaamili lahaa, noloshiisa ku horumarin lahaa ayuu kaa kharibaa. waa inagii kusoo sheegaynay inuu qaadku keeno waaliyo fara badan, noocyo fara badan oo waaliya. nin calaashigiisaa badsaday shilinka caydhowyi. nin calaashigiisaa badsaday qaadka cunistiisa. ninku mar hadduu badsado shilin kuma yeedhaya buu leeyahay oo caydh buu noqonaya. macnaha halkaana dhaqaale xumadii ayuu ku tilmaamaya. waa diintiibu waxyeeleynayaa, caafimaadkiibu waxyeeleynayaa, habsami socodkii nolosha waxyeeleynaya, caqligii qofku waxyeeleynaya, dhaqaalihiibu waxyeeleynaya. curubtiisa ruux laasimaa wuu calaacali. curubta waxaa dhaha inta jilicsan la arjawda la cuno. ruux joogteeye oo la macaamilo oo laasimo oo qaadka dayn waaya mar uunbuu ka qoomamoon oo calaacali buu yidhi. nin curubtiisa laasimo oo qaadka la macaanaada mar buu ka calaacali doonaa. cunidiisu waa qaadiriya caynka waalida. qaadka cunidiisa waxyaabaha laga dhaxlo waxaa ka mid a qofku inuu qaadiroodo hurdo la-aan ku dhacdo iyo inuu waasho. labadaasi waa waxyaabaha laga dhaxla buu leeyahay. ee ciladiisu badana maxaa ceeb dhex xoganaysa? waar balaayada ciladiisa iyo dhaliishiisa iyo xumaantiisu faraweyna maxaa dhegxumo ku dhex jirtay buu yidhi ceeb dhex taalla baalka. afartaana is-eelkaanbi iyo cabasho waayee dheh
kuwan haatan caashiqay waray ku cibro qaataan dheh. wuxuu halkan haddana inoogu sheegayaa qaybtan kale macaamilka dadka qaadka iibiyaa inaanay xataa wanaagsanin. qofka bini aadamkaa waxa keliya uu ilaashadaa waa dadka had iyo jeer macaamiisha u ah. qofka qaadka had iyo jeer iibiya macaamiil ma yaqaan. maalin kastaba adoo lacagtii siinaya ayuu haddana ku caayaya, ku aflagaadeynaya, kula soo diriraya, message aan kuu qalmin kuu soo diraya, 24 saacadood ku hadigaya. qaadkaa lagu yaqaanaa. dadka qaadka iibiyaa markaa macmiil ma yaqaanaan buliyo. wuxuu yidhi cadceedii dhacdaba adoo kuman cas dhiibaya, cadceed kastoo dhacdo habeenkii yimaadaba adoo lacag fara badan bixinaya, qaadkii bixinaya, oo lagugu caayayo baa kuu caqiiba ah, oo haddana lagugu caayayo lagu leeyahay bahalyow sidaas iyo lacagta nasiib bahalyow lagu leeyahay, ayaa mustaqbalkaagii aayahaaga dambe ku ah. caqiibo waa ciribta dambe nolosha. canaasiirta kaa iibisaana kuma ciseeyaan. canaasiirta waxaa la idhahdaa dadka liita ee aan waxba ahayn, ee naf lahayn, ee dhaqan ahaan liita, ee bulsho ahaan liita, ee macmiil ahaan liita, ee had iyo jeer dadka xunxuna iyo canaasiir leena. canaasiirta kaa iibisaana kuma ciseeyaan, kuma sharfaan. dadka had iyo jeer qaadka kaa iibiya ee aan macmiilka aqoone xumina kuma sharfaan oo kuma ciseeyaan. cunaha rag shaar lagu hayana caadi loo aragi. rag cunaha shaar lagu geejiyey oo laleeyahay noo dhig halkaa qaar lagu haysto, rag mijin lagu haysto suuqa dhexdiisa ayaa caadi loo arkay oo dadku sheegeen. cajiib. intaasoo cambaarayn ah, intaasoo dhaliil ah oo iin ah oo lagu caddaynayo maragmadoona soomaalidii haddana caleentaa madow lagu calaameeyey. caleentaa madow lagu calaameeyey. halkaasi lagu cambaarey maaha, waa lagu calaameeyey. sorry, soomaalidii caleentaa madow lagu calaameeyey. calaamee ereyga calaameed lagu ibtilay wey. waa taybka markaan qoraynayba ayay yara qaldantay, raalli ahaada. lagu calaameeyey. soomaalidii caleentaa madow lagu calaameeyey. wuxuu yidhi nin casaan ahaan jiray markuu cunay madoobaaye, nin kasta oo qurux badnaa qaadka markuu cunay waa uu madoobaaday buu yidhi. markuu qaadka cunay waa uu madoobaaday, u fool xumaaday. macnaha nin kastoo qurux badnaa qaadkaa markuu bilaabay u fool xumaaday. halkaa waxaynu ka qaadanaynaa qaadku inuu qofka ku keeno dhalan rog, inuu isdhalan rogaba, midabkiisa dooriyo, muuqiisa dooriyo, quruxu wuxuu lahaayoo dhan qaadku rifo u baabiiyo ayay inoo sheegaysaa. caruurtoodii oo ooyeysay ku ceshanayaan. dhibaatooyinka kale waaweyn ee qaadku leeyahay waxaa ka mid ah caruurtoodii oo baahan oo ooyeysa oo laga yaabo inay gaajoonayso ayay ku ceshanayaan. oo qaadkii mar labaad haddana qarxis iyo biyo raacis waxay u bixiyeen oo habeenkii la dirto ayuu ku ceshanayaan. waa mas-uuliyad darro, waa caqli xumo, waa caqli xumada dadka had iyo jeer qaadka cuna waxyaabaha ka suurtooba. caruurtiisiioo baahan oonu waxba u haynin ayaa waxoogaa soo gelaya, waxoogaagii baahidiisii balwad ahaaneed ka fuul yeelaya. markaasuu yidhi caruurtiisiioo ooyeysa ayay ku ceshanayaan buuri. cuqubada allow nooga sahla la caraabayo. alla ilaahow inkaaraha iyo nabsiga iyo isha halkaa ka imanaysa ilaahow nooga sahal buu yidhi. afartaana isciilkaanbi iyo cabasho waayeel dheh, kuwa haatan caashaqay waray ku cibro qaataan dheh. wuxuu yidhi inta yaree dambe dhammaadka wuxuu ku sheegayaa maalin walba iyo cadceeddii timaadaba inuu yidhaahday iska daa qaadka. haddana markuu maalintii habeenkii gelinkii dambe soo galo uun isagiiba maahee uu haddana qaadkii cuno. markaasuu damiir xumadiisiibu ka markhaati kacaya. wuxuu leeyahay waa show ila caqlibayguma jiro miyaan maalin uun iska daayay. wuxuu yidhi cawo noolba daabaan idhaa camalna waa kii. cawo noolba daabaan idhaa camalna waa kii. habeenkii kasta yimaadaba qaadka iska daabaan isidhaa, haddana camalku waa kii uun. casarkii markuu soo dhacaan dib u caddeeyaay, mar alla markuu qaadku soo galo baan dib u qaylaa buuri. caqaar iyo mijini waa waxaa caynkanii galay buuri. caqaar iyo mijin waa waxaa caynkanii galay. caqaartu waa mijintu waa taxidhan, caqaartuna waa barhkeed. mijin caqaar yari waa waxa sidaa iga yeelay buureen la gaboobeen noocaa uga egaaday. caqli daraniyaa sow maruun cawda uma gooyo. yaa salaam.
wuxuu yidhi caqli daraniya oo damiir xuniya oo kasgaabsaniya sow bahalka maalin iskama daayo. halkaa dambe markaa waxay noogu sheegayaa qofku hadduu qaadka ku talax tago inaanu xataa go-aan lahayn, noloshiisa aanu go-aan ka gaari karin, isla markaana maalin walba isagoo ku taamay haddana waxba u suurtagelin. gabaygaasi halkaasi ku dhamaaday. waxay noo sii raacda ardaye dee ragga ka hadlay gabay ku sheegay qaadka iyo waxyeeladiisa way fara badan yihiin. nin kalaa laga soo qaatay 4 todob oo uu kaga hadlay dhaqaala burburka uu gabay uu geysto qaadka uu geysto dadka. waxa gabay markaa uu ka tiriyay daarta qaadka mariyay nin la oran jiray Ahmed Wacays madar ninka la oran jiray oo lagu naanaysi jiray badmadow. waxaana uu yidhi haddaan buu ku qoro xoolahan 10 bilood siistay ee igaga baxay haaf milyan way ka badan yihiin. haddaan buu ku qoro xoolahan 10 bilood siistay ee igaga baxay haaf milyan way ka badan yihiin. dadna lacagta kama soo diro baan ma soo dhige hadba neef baraara sidii bahalka jiitaa buu yidhi. ninkan wuxuu tilmaamayaa haddaan xisaabiyo wixii qaad lacag igaga baxay 10 bilood oo keliya haaf milyan way ka badan yihiin buu yidhi. haaf milyan waa 500,000. 500,000 maanta waxba ma aha, laakiin waqtiga uu gabaygan tirinaya oo waqtiga lacagtu xogin jirtay waxa laga yaabaa ninka 500 haaf milyan haysta inuu ninka taajirsan baan jirin intaas soo guriyay intaas soo gaari uu lahan karay. wuxuu yidhi markaa dadna lacagta kama soo diro baan ma soo dhige lacagta dibad intaan u tagay ma soo dhoofiyo oo baaranka waxba iima yaalaane hadba neef baraaraan sidii bahalka jiita hadba wan yaro soo koraya ayaan sidii libaax ama dacwada ama waraabaha jiitaayo la tagaayo suuqa intaan ku soo iibiyo ku qayla. bismillaahi raxmaani raxiim. waa ayaan badada dadka hadii jeer bilga haysta neefkiiyo nooloo daaqaya ayaa laga yaabaa inuu qaad ku cuno, dabeedna maalinta qaadka halkii gaadho uu neefkii soo iibiyo, dabeedna uu qaad ku cuno, dabeedna neefkii keeno oo xoolo dhani meesha ka baxaan. sharxii ereyada halkan inoogu jira ereyadii dhammaantood wixii ereye ku jiray gabaygu halkaasay kugu qoran yihiin iyagoo qoraal ah ayaan idiin soo diri doonaa hadduu ilaahay idhaahdo. dee ardayda waxaa laga rabaa inay dadaal fara badan la yimaadaan. hadduu ilaahay idhaahdo waynu isku soo noqnoqon doonaa xiisadeenu tan iyo tukala toona ma way intaa howlahan socdaanba way socon doonaan. khayr fara badan baan idiin rajaynayaa. ilaahay waxaan idinka baryayaa meel kastoo joogtaan weliya gabdhaba in alla idinku nabadgeliyo. dee waxaan idin leeyahay mar kale Ramadaan Kariim. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.